Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Dhammaantiin asxaabtayda meel walba aad dunida ku joogtaan kusoo dhawaada mar kale. Waa walaalkeen Xadifta oo idinla kusoo dhawaada janaalkayga Team Rajo One. Insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waxaa idin wadaagayaa jimicsi yar oo ugu talagalay dadka aanan xaafadda joogo oo aan jimkii aadin inay wax yar sameeyaan. Inuu qofkaas oo gurigiisa joogo oo faa'iidaysan karo, inuu ku dadaalo inuu mar walba wax samayn karo, especially caloosha iyo intaan hore garbaha push up oo kale. Push up yaroo sahlan qofkaas oo gurigiisa joogo uu samayn karo, iyo jimicsi yaroo caloosha oo adiga ilaa 4 qayb camal ah. insha Allah next video insha Allah intaas in ka badan aan soo geli doonaa. Xogaa waqtiga ugu yaraan markaan sameynaayo, laakiin insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo waqti badan aan geli doonaa insha Allah. Weegan adiga maanta Arbaca ah haddii Ilaahay yiraahdo beri dambe ilaa Axad insha Allah inaan 2 video 3 video kala soo geliyaan ku dadaalaya insha Allah. So marka haddii aad janaalka cusub tahay, please like, subscribe, share. haddii aad hore iga mid ahaydna insha Allah like-tan muhiim. insha Allah waxaan qof walbo ka codsanayaa, qof allaala qofkii danaynaya inuu wax ila soo wadaago. hadday su'aal tahay, hadday fikrad tahay, hadday wax kala tahay, intaba ay soo wada dhaweynaya. Assalaamu calaykum. Ma is dhibaya soo saasoo jilba jabsan meeshiisa joogo oo aan waxba samaynin oo laba siyaabood sameynaa. midda koowaad aan ku bilaabayaa gacmahayga oo isku dhow laakiin ku cabiran xabadkayga naasayga hoostiisa. waa buush abka caadiga ah oo kale waxba maga baryaayo, laakiin markay gacmaha isku dhow yihiin waxaa ku jiro basic saasaan dheeraysaa. gacmihii gadaalaa ku jirto markay gacmaha isku dhow yihiin. isla asagii samayn kartaa, gacmaha kala fogeynaysa, jilbeega dhulka yaalin ujeedaa. laanno qofka miisaanka badan iyo qofka miisaanka caadiga ah intaba uu samayn karaa. qofka miisaanka badan maadaama buush abka caadiga markuu saan dhaho balansiga iyo waxaas uu ka cabsanayo, hadda laakiin isagoo caadi uu samayn karaa. so marka jilbahoo dhulka dhiganaa خلاص. wax barbalan malaha mujeedaa, jilbeega dhulka yaalin, laakiin aniga intayda hore caadi aan u samaynaa. waa dareemaya sida buush abka caadiga oo kale, wax macnaa ma samaynayo. laanna wax uga duwan yahay ma jirto. intii aan dareemi lahay waa dareemaya, isku mid waa labadooda, waxa ma is dhamaan. halkaasaa uga gudbi kana. waxaa rabaa marka caloosha inaa ku tuso adigoo waxba samayn gurigaaga joogta. gacmahaaga meeshaan dhabarkaaga dambaa dhigaysaa, lugahaaga saas waa soma khalaas. shan iyo toban xabo. waxaa ugu muhiimsan marka waa caloosha la sameeya. caloosha inta ugu daran waa hoostaan. hoostaan qofka haddii ugu jaro ee dhammaato caloosha intiisa kale, qaybtaan kore waa qaybta ugu sahlan oo la sameeyo. laakiin waxaa ugu badan oo dadka dhib ku taadan waa halkaan iyo keliyaha. so marka midda koowaad taas waaye. tan labaad asigaa saxaysaa oo kali. lugaa markaa hoos geynaysa waa qasab inay fidaan, maxaa yeele kana dareemaysaa markaa lugaa fidaysid.
kaa badan 15 oo 3 mar ah 15 kaa badan marka kan wuu imaanayaa waayo kan saantan habeen dambe insha allah ama habeen ku xiga sameynaya hoos iyo kor bayda isla socoto waa inay tusaa soo marka u baahnid in iswaashi tartiib cusubkaaga hilibkaas wada shaqeynaya bas haddaad doonto geesgeesa ka dhigi karta hadday ku dhibayso hore laakiin hore markaasaan tiraad macnuun badno saan inaad dhahayd isku day mar walbo haddii zaa'id aa wada keeni karin intaas kaa badan qaybta koraa soo kicinay bas laanna qof culus haddaa tahay oo aadan labada isu soo qaadi karin qaybtaadan koraa soo qaaday adoo geesgees u jiifo bas haddaa labada samayn kartid kasii fiican waa mahadsantihiin marka